habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto waxyaabo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan samayno iyo waxyaabo uu nagu booriyey inaan samayno lianna ajir badan ayay leedahay. haddaba waxyaabuhu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan samayno waa maxay? waxyaaluhu nagu booriyey inaan samaynane waa maxay? alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalayaal tasjaal meel adduunkaad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. caawa habeen jimco, berrina waa maalin jimco. habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto arrimo ama umuur la sameeyo wanaagsan qaarkooda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan samayno, qaarkoodane nagu booriyey. arrimahaas waa 5 qodob. 5taas qodob ayaan sheegaynaa ee samey oo ku dayo sunnada xabiibkaaga Muxamed sallallahu calayhi wasallam saad u heshid ajirka badan. arrinta koobaad oo caawa ka bilaabanayso, caawa habeenkii jimcada soo gelaysa, waxaa waaye inaan badino salliga nebiga. waxay soconaysaa ilaa berri maqribka ay soconaysaa. habeenkii jimcada soo gelayso ilaa berri maqribka way soconaysaa. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaad badisaan salligayga inaad salaan ii soo dirtaan habeenkii jimcada soo gelayso oo caawo kale iyo maalinta jimco. sababta ay tahay waxaa waaye salaantiina waa lii soo gudbina. soo ma jecesha salaantada xabiibka loo gudbiyo? nin saxaabiyaa weydiiyo yaa rasuulallah, markaas waaba dhimatay, waa baaba'day, see laguu soo gaarsiinaa? xabiibkeena Muxamed wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi dhulka ilaahay wuu ka xaaraantimeeyey inuu cuno ama uu dhowaado jismiga ambiyada sallallahu calayhi wasallam. badi salliga nebiga caawa iyo berriba khayr allah ku siiya. arrinta labaadna waxaa waaye berri oo salaada subax maalinta jimco haddaa awoodid inaad ku tukatid masaajidka samey. mar walba way fiican tahay salaada subax in lagu tukado masaajidka. faa'iidooyin badan ay leedahay salaada subax masaajidka lagu tukanayo, hadda kor waa ka hadlan. laakiin salaada subax maalinta jimco way ka duwan tahay salaadaha kale, laana xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa sheegay oo wuxuu yidhi salaad la tukado waxaa u fiican salaada subax maalinta jimco oo jamaaco lagu tukado. waa xadiid saxiix waaye. idan saad u heshid ajirkaas, tuko berri salaada subax masaajidka tagoo jamaaco ku tuko. ragga waajibay ku tahay, dumarkana haddii awoodo inay tukato ninkeeda raacdoo kalo rabta ajirka inay ka qayb gasho iyadana way u bannaan tahay, laakiin gurigeeda inay ku tukataa u roon. arrinta saddexaad waa inaad salaada jimco isu diyaarisid oo dhaqso tagtid. salaada jimco inaad tukatid waajiba kama hadlayno, laakiin waxaan ka hadlayno waxaa waaye inaad qabaysatid oo dhaqso tagtid. rasuulka sallallahu calayhi wasallam qofka jimcaha dhaqso tago axaadiid badan ayuu ku sheegay, ajir badan uu u sheegay. ajirka koobaad wuxuu u sheegay in la siinayo si dadku u kala hormaraayiin, in la siinayo geelo, ari, digaag, ukun saasoo kale la siinayo. fadliga labaad uu sheegay waxaa waaye qofkii man qasala waqtasala, qofkii qabaysto si fiican u qabaysto oo kallaho lugeeyo imaamkana u dhowaado aanan ku hadlin tilaabo kasta uu qaado wuxuu helaa ajir 1 sano, ajir 1 sano qiyaamkeeda iyo soomkeeda. idan berri dhaqso qabayso, isbarfuumi, dharkaaga cad xiro, khudbada aad. intaa khudbada ku jirtidna ha hadlin, khayr allah ku siiya. arrinta afaraadna waxaa waaye suuratalkahf iloobin. suuratalkahf waxaa bilaabi kartaa salaada subax kadib ilaa salaada maqrib intuu dhexayso. salaada subax ka hor lama aqrin karo laana habeen waaye. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay maalinta jimco in la aqriyo. culummadu waxay dhaheen marka maalinta waxay bilaabataa waxaa waaye salaada subax kadib ilaa maqrib, intaasaa haysata aad aqrin kartid. waqti mucayan, waqti go-an ma lahan, waqtigaarta aqri karta, laakiin ku dadaal jimco walba inaad aqrisid suuratalkahf. sababta ay tahay nebigeena wuxuu ku sheegay qofkii aqriya suuratalkahf inuu ilaahay siinayo nuur jimcahaas ilaa jimcaha kale ku xigabo. haddaad jeceshid nuur inuu ilaahay ku siiye, nuur allah ku siiye, suuratalkahf waqti badan kaama qaadanaysa. aqri, qasab maha kor inaad ka aqrisid, kitaabkaaga soo qaado ka aqriso, khayr allah ku siiye. arrinta shanaadne maalinta jimco waxaa ku jirto saaco ducada la aqbalo.
saacadaasna waxay u badan tahay inay tahay bacda alcasr culamo qaarkooda waxay dhaheen waxaa waaye khudbada markuu imaamka meesha saaran yahay waaye laakiin waxay u badan tahay bacda alcasr inay tahay sidaa darteed jimco walba casrka kadib waxaa samaysaa ducayso waqti badan ma ahan 2 saac 3 saac inay ku jirtaa laga yaaba masaajidka ka fadhiiso adkaartaada aqriso nebiga ku sali 6 maalmood kale waxaa qabso laakiin maalinta jimco casrtii ku dadaal khayr Allah ku siiyo saacadaas uu ilaahay ku waafajiyo hatta saacadaas uu waafajina waa liibaat oo ducooyinka badnaa ku ducayso ducooyinka ka soo sheekayni ducooyinka ramadaan ka soo sheekayni ku ducayso khayr Allah ku siiyo ducooyinka gaabano xabiibka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday oo khayr adduunka ku aakhira ku keenay waxa rabtid waa ku ducaysan kartaa xoolo weydiiso caruur weydiiso wax walba weydiiso laakiin ducayso khayr Allah ku siiyo muslimiintana u ducoo santaas arrimood ku dadaal jimco walba khayr Allah ku siiyo dambigaaga keygaba Allah dhaafo jannadana Allah nagu wada kulmiyo Allahumma aamin ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weydiinayna inuu noo dambi dhaafo qof kasto walaalkiisa u sii gudbiyo kilibkan inuu ilaahi dambi dhaafo oo xifdiyo ayaa ilaahi weydiina walaalihina kale u sii gudbiyo kilibka agtiinu istaagin bakhiilha noqonina khayr Allah idin siiyo jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum ilaahi dartiisa idin jeclahay ka faa'iideyso walaalaha kale u sii gudbiyo bakhiilha noqonin khayr Allah ku siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.